saa'ilku wuxuu leeyahay daawashada filimaantan xunxun ee qaawanaanta iyo rag iyo dumarka xaaraanta isku caydhsanaya iyo daawashadooda ma dunuubta waaweynba mise waa dunuubta yaryar? maxaana saa'ilka waxaan ka garanayaa hadalkiisa inay xaaraanta oo dembi yahay waa garanayaa, marka waxba wakti badan gelin maayo inay xaaraanta. ma kabaa'ir baa mise ma aha? laba arrimood baan rabaa, arrin hordhacaan rabaa inaan tilmaamo intaanan mas'alatu nadar ma min alkabaa'ir baa mise ma aha aanan dhihin. mas'alada kabaa'irta iyo sakaa'irta waxaa adag xadda faasilka ah ay ku kala baxayaan, kala soocoodu ma sahlana. kabaa'irtuna way kala yaryar tahay, sakaa'irta yaryarna way kala waaweyn tahay. haddaba sakaa'irta yaryarkaa kan ugu weyn iyo kabaa'irta mid kan ugu yar meesha iska soo galaan masale adag weeye faasilka iyo xad u helitaankeedu. sida waxay yidhaahdaan shirkul asqarka iyo shirkul akbarka halkay ku kala baxaan lafteedu ay u mugdi badanta. shirkigu waa kala waawenya, kan asqarka ee yarna waa kala waawenya, kan akbarka ana waa kala yaryarya. shirka asqara saad u socoto akbar markaad u guurayso, akbarka kan ugu yar iyo asqarka kan ugu weyn xadda faasilka ah maxay tahay? masaa'ilka alqaraafi iyo rag lamida fi lfuruuq farqiga u dhexeeyaay ay mugdiga iyo ishkaalka badan ku sheegeen buu ka mid yahay, helisteedana uu madowga badan ku jiro. oo hadhow waxaa la isu khilaafayaa, madowgaa wuxuu keenayaa in qayb kabaa'irtii kamida culummada qaar oo u dambeeyey ay sakaa'ir raaciyaan weerarka, qaarna kuwa sakaa'irta ugu dambeeyee ugu waaweyn ay kabaa'irta ka raaciyaan. lidaalika masaladaas waxaad arki doontaa markaa shirki alasqar iyo shirki alakbar xaddee ku kala baxaan aad leedahay, mantiqo iyo aag waxaad helaysaa khilaaf ka jiro, kan waa asqar iyo waa akbar. sida kabaa'irtaba aag khilaaf ka jira aad u arkayso, ma aaggaas khilaafku ka jiro aag ijtihaadiyaada iska noqono, qofna dhinacuu ka eego qofna dhinac ka eego. waxaan munaasabada hadalkaa u keenay hordhaca mas'alatu nadar markii dhinacyada qaar laga eego min hada albaabi waay. laakiin laba xaalo baa kala duwan, fiirinta iyo joogtaynta. inaad fiirisood aragto waa xukun, inaad joogtaysood daawatada badisana dee baabkii waxay geli culimmadu ay dhihi jireen alisraaru cala asakaa'ir. sakaa'irta yararkaa haddaad daa'imtood ku madax adeegto kabaa'ir bay isu bedeshaadii baa ku saamaynaysa. masalatu nadarkani sideedaba ma kabaa'ir baa mise waa sakaa'ir? masala khilaafiya wey. haddii la raaco tacriifka kabaa'irta ibn xajar alhaytami kitaabkiisa zawaajir iqtiraaf alkabaa'ir iyo ay qaateen la raacana iyo culummada tacriifka iyo xadka wax ku salaysayna isagu dee kabaa'irtu gelayaayo qaar kabaa'irta kamiduba sidaa ku tilmaamay. haddii tacriifka kabaa'irta ibnu teymiye iyo rag lamida ay mareen la raacana sakaa'irtu gelaya ka mujarad fiirin iyo aragti marka laga hadlayo. aniga waxaa ila dhow daahirka nusuusta wixii mar arag iyo ilku dhacaya mar fiirin ah inuu sakaa'irta yahayba ay kuwa yararkaa iila dhow. sababtoo haddii fiirintii iyo gacan ku taabashadii iyo wixii aan galma ahayn ee ka sokeeyoo dhan ina alxasanaati yudhibna sayi'aati ay ku soo degtay oo layidhi weysadii baa dhaafaysa, lagu dhaafayaa. culimmaduna in badan ay yidhaahdeen kabaa'irtu towbo khaasay u baahan tahay, kuwana acmaasha saalixa ah yaa lagu dhaafayaa in alxasanaat bismi la yidhi. xasanaat yudhibna sayi'aati waxaa lagu dhaafayo waa sakaa'irta, kabaa'irtu towbay u baahdaan.
ninkii nabigu yimid alayh salatu wasalaam ee yidhi magaalada duleedkeeda qof dumaraa wixii un rag iyo dumar dhex mari jiray oon galma ahaynna dhex maray ee wixii hada iga fuliya inuu is asturo uun soomaadan weysaysanin soomaadan tukanin taasaa kafaara ku ah baa la yidhi hadda mujarad fiirin bay hadda su-aashu ahayde nin fiirintii iyo taabashadii iyo tuutuujintii ku daray baa qismu sakaa'ir tacriifkii iyo xukunkeedii ah la raaciyay mudaawamadii iyo joogtayntu masalo kale weeyo israar cala sakaa'ir waxay noqon lahayd oo lagu madaxday oo lagu daa'imay tegaysaa intaasaan maqaamka kooban dartii ka dhihi kari lahaa intaa nabadgeliyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu